waxaan joognaa galabta shaybaarka dhexe ee qaran National Public Health Lab waxaan ku faraxsanahay maanta inaan imaadno in aan sheegi karno in COVID-19 testiga ama baaritaanka hadda kadib lagu sameynayo inta magaalada Muqdisho ee shaybaarka qaran waa dareemi kartiin waana la socotiin marka cudur dilaacan dhacay walwalka ugu weyn oo haystay waxay ahayd in aanan haysanin qalabkii lagu ogaan lahaa cudurkan COVID-19 inuu yani qofka qaba inuu negative yahay qofka qaba waxaa la isku dayay juhdi badan horaan u sheegnay makiinada cusub in loo dalbayo dad nagu kaalmeeyeen ay soo socdaan oo 3 ah laakiin kii yaalay ayaa waxaa la isku dayay ilaa iyo intii ay ma aragtay soo baxday dhibkan cudurkan uu soo dilaacay sidii looga shaqaysiin lahaa waxyaalo badan ka dhinna waxaana kaalmeeyay hay'adda WHO oo technical expertise dad noo soo dirtay iyo qolyo private sector oo magaalada ka shaqeeyo mahad celinayna oo noo keenay waxyaalo ka dhimanaasi ay makiinadan PCR ka u shaqeyso waa muhiim in wadanka gudihiisa lagu baaritaanka lagu sameeyo sababtoo ah mar walba ma sameyn kartid baaritaan badan cadad badan dibadda uma diri kartid ilaahay anaga haayo cudurkan labada shay ee ugu daran waxa waaye ka hortagga iyo xakameynta inaan helno qalab lagu baarana muhiimadda ay leedahay waa taas yani in cudurkii laga hortagi karo lana xakameyn karo si uusan u fidin waxaan u mahad celinayaa dhalinyaradii iyo shaqaalihii wasaaradda caafimaadka ee sida daal-la'aanta ah ayaamaha isaga xil saaray ee ilaa iyo habeenadii soo jeeda shalay ayaa la bilaabay sambalkii ugu horeeyay maanta 15 sambal ayaa hadda laga shaqeynayaa ilaa iyo ayaamo sida ay caadada u tahay hay'adda WHO kuwa aan sameynay confirmation amal waa inaan u dirnaa laabyada kale oo WHO certified ka yani ruqsadda ka haysta lagu sameyn karo waa waqti yar si loo fiiriyo resultska natiijada annaga kuweena ay sambaleskeena inta ay ku sameey ay ku helay yani lagu cadeeyay in meelaha kale loo dirayana iyagana isla natiijadii ay xaqiijiyaan taas waxayna siinaysaa inaan WHO iyo hay'adaha u sameys yani ku shaqeey arrimahan inayna siiyaan go ahead hore loo socdo waa la sameyn Soomaaliya waa sameyn kartaa labkeenan shaybaarkeenan dhexe ee qaran waa sameyn karaa marka waa runtii waxaan wada sugaynaa waaye oo ayaamahan aad loogu mashquulsanaa oo aan laga fariisanin component weyn ah ka hortagga cudurkan coronavirus 19 waxaana mar labaad mahad celinayaa si kal iyo laab dhalinyaradii iyo shaqaalihii guud ahaan ka wada shaqeeyay inay hirgasho waxaan idinku boorinayaa inaad mar walba saan u taagnaataan ma aragtay si aad dadkiina aad u kaalmeysaan oo uga hortagtaan cudurrada ilaahay ha naga haayo ilaa iyo hadda 7 case ayaa cudurkii Soomaaliya la xaqiijiyo oo jawaabtooda ay noqotay 7 laba waxaa laga keenay Hargeysa 5 kale waxay ahaayeen 2 ajnabi ah iyo 3 qof oo Soomaali ah alxamdulillah hal qof waa ka bogsooday tijaabadii koowaad ee la diray waxaa lagu daray mid labaad iyo mid saddexaad si loo xaqiijiyo in qofkan cudurka jirkiisa uu ku jirin viruska jirkiisa uu ku jirin ilaahay waxaan ka rajaynayaa inta dhimanna iyagana in laga waayo cadaymada oo aan jeclahay inay waqtigan soo dhamaadeen marka waa dadaal iyo juhdi ay gashay wasaaradda caafimaadka iyadoo kaalmeysanaysa hay'adihii kaalmeynaya xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo cid kastoo ka qayb qaadatay waxaan baaq u dirayaa marka qof allaala qofkii waxaana la soo xiriiray dad Soomaali ah oo expertise u leh inay waxyaalahan kala shaqeyn karaan shaybaarka waa u mahad celinayaa cid allaala cidii kaalmo ka geysan karto haba yaraatee sidii uu laabkan yani shaybaarkan hore ugu sii socon lahaa